بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن دمانبا ديجستياشا قيميجي وقاياها مدنة هودا نغلا سعودة وعودك سومالي دا فينلان SSM oo idiin soo gudbinaysa wararkii caalamka ee viruska corona Finland iyo dunida inteeda kale. haddaan ku horeyna dalka Finland sidii caadiga ahayd hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL ayaa shaaca ka qaaday in maanta oo Jimcaha laga helay viruska corona 219 qof oo hor leh. tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee dalkan Finland ayaa gaaraysa 14,474 qof. meelaha ugu badan ee cudurku aad ugu faafayo waa magaalooyinka kala Helsinki iyo Uusimaa oo laga helay viruska 122 qof waxaana ugu sii daran magaalada Esbo. waaxda daryeelka caafimaadka Vaasa oo laga helay 24 iyo gobolka Varsinais-Suomi oo laga helay 18 qof. hay'adda THL ayaa dib ka saxday tiradii dhimashada ee hore u sheegeen. hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga ayaa dib ka saxday tiradaasi dhimashada waxaana ay tiradii hore ka yar tahay 2 qof. dalka Finland waxa uu dhintay cudurka corona awgis ilaa haatan 353 qof. hore ayay Arbacadii u sheegtay hay'addu in tirada dhimashada ay tahay 355 qof. laakiin tiradaasi waxaan ku jirin dadkii shalay ilaa iyo maanta dhintay haddii ay jiraan dad dhintay oo gadaal laga soo sheegi doono. waxaa haatan xanuunka awgiis daryeel isbitaal ugu jira 70 qof 59 ka mid ah dadkaas waxa ay ku jiraan qaybta daryeelka caadiga ah halka 11 ka midana ay ku jiraan qaybta xaaladda aadka u daran. waaxda daryeelka caafimaadka ee Vaasa oo sheegtay in xadidaadda ah kulanka 10 qof aan ka badnayn uu sidiisa u sii jiri doono ilaa iyo dhammaadka bisha November ee soo socota. waaxda maamul goboleedka ee galbeedka iyo bartamaha Finland waxa ay sheegeen in xadidaadaasi ku saabsan kulamada ee lagu xadiday 10 qof ay waaxda daryeelka caafimaadka Vaasa ka sii jiri doonto ilaa iyo dhammaadka bisha November sababaha xanuunka awgiis. si kastaba waaxda daryeelka caafimaadka ee Vaasa waxa laga qabanqaabin karaa kulamada ugu badnaan 50 qof haddii la raacayo tilmaam bixinta xagga ammaanka ee arrinkaas laga dajiyay sida kala fogaanshaha iyo in afshareerka la qaato. xaaladda faafista viruska corona ee farakabaxa ahayd ee ka jirtay waaxda daryeelka caafimaadka ee Vaasa ayaa haatan yaraha katay laakiin xaaladdu waxa ay leeyihiin maamulku waa mid wali dalbaysa in si aad looga taxadaro. agagaarka waaxaha daryeelka caafimaadka ee gobolada Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa iyo Keski-Suomi waxaa loo ogol yahay in tirada ugu badan ee isu imaatanku noqdo 50 qof. xaaladda faafista viruska corona ee dhammaan dalalka Yurub iyo Ingiriiska ayaa xaalad walwal leh laga muujiyay waxaana la sheegayaa in arrinku haatan uu meel adag marayo waxaana sidaa sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagga cudurrada faafa ee midowga Yurub ee marka magaceeda la soo gaabay loo yaqaano ECDC. sida waaxdu ay sheegtay xaaladda viruska waxa uusan walwal aad u weyn ka taagnayn 4 dal oo kaliya oo kamid ah xubnaha midowga Yurub kuwaas oo kala ah Qubrus, Estonia, Finland iyo Greega. dowladda Poland ayaa ku adkaysay amaradii ay ku soo rogtay dadka sidii wax looga qaban lahaa xanuunka safmarka ee corona. Poland waxa la xiray dhammaan makhaayadaha iyo baararka dalka oo dhan. sidoo kale waxaana ay xirnaan doonaan muddo 2 toddobaad waxa kaliya oo la ogol yahay in raashinka laga dalbado oo qofka uu ka soo qaato makhaayada oo kaliya. dadka waxa la amray in 5 qof ka badan aanay isu imaan karin waxaana dowladdu ay soo jeedisay in dadka wixii ka weyn 70 sano ay ilaa iyo muddo aan la cayimin guryahooda ku jiraan. iskuulada oo dhan waxa waxbarashada laga dhigay dhanka internetka marka laga soo reebo fasalada 1 ilaa 3 ee dugsiga hoose iyo xanaanooyinka. dalka Poland waxa maanta oo kaliya la xaqiijiyay 13,632 qof oo cudurka corona uu ku dhacay oo cusub. wasiirka caafimaadka ee Poland Adam Niedzielski ayaa sheegay inuu rajeynayo in tiradaasi aanay kor u dhaafin 18,000. arrinka daryeelka caafimaadka ee dalka Poland ayaa si aad u qasan xaaladda viruska corona ee ka jirta awgeed. garoomadii kubadda cagta iyo xarumihii shirarka ayaa waxa laga aasaasay isbitaallo dadka la seexiyo. dalka Czechna wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa laga dalbay in uu iscasilo kadib markii uu khilaafay sharciyadii laga dejiyay viruska corona. ra-iisul wasaaraha dalka Czech Andrej Babis ayaa ugu hanjabay in uu cayrinayo wasiirkiisa caafimaadka haddii uusan isagu si iskiisa jagada uga degin. arrinkan waxaa sababay kulan uu wasiirka caafimaadka xaaladda corona ee jirta awgeed uu kula yeeshay makhaayada dhexdeeda xubin ka tirsan xisbigiisa. waxaana uu sidaasi wasiirka caafimaadku ku jabiyay sharciyadii aadka u adka ee dowladdu ka soo saartay arrinka viruska corona. kulanka
uu makhaayadda ku qabsaday wasiirka waxaa soo kashifay qolyaha kaamirada la wareega ee dadka la dabagalay loo yaqaana babaraziga, kuwaasoo sawiray wasiirka oo makhaayadda ka soo baxaya. waxaana wasiirku uu kula kulmay makhaayadda gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xagjirka ah ee ANO Yaroslav Volodymyr saacado kadib markii uu sheegay heshiiska ku saabsan wasiirku laftigiisu xadaynta cusub ee aadka loo adkeeyey ee dowladdu ka soo saartay arrinka la xiriira xaaladda faafista viruska corona, taasoo fajaci ama kaa ku noqotay ra-iisul wasaaraha dalka. wasiirka caafimaadka ma uusan sidan afshareerka sida ka muuqatay sawirka lagu xaday ee ay babarazigu ka soo qaadeen, iyadoo ay jirto in dalka laga dhaqangeliyay sharciyada aadka u adag ee qaadashada afshareerka. ra-iisul wasaaraha dalka Czech ayaa ku tilmaamay falka uu sameeyey wasiirka caafimaadka mid aan sinaba loo cafin karin. Czech waa dalka ay ka jirto xaaladda ugu daran ee viruska corona ee wadamada Yurub. waxaa 24 saac la soo dhaafay oo kaliya Czech laga diiwaan geliyay 14,151 qof oo qaba viruska corona. dalka Turkigana sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Fahrettin Koca, xaaladda viruska corona ee dalka Turkigu haatan kor ayay u sii socotaa. Koca oo la hadlayay warfidyeennada ayaa sheegay 40% xaaladihii ugu dambeeyay ee laga helay magaalada Istanbul, taasoo buu yiri 5 goor ka badan tan ka taagan magaalada caasimadda Ankara. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxa dowladda dalkaas ay haatan ka fakaraysaa sidii loo adkayn lahaa xadidaadaha looga hortagayo viruska corona. waxyaabaha ay ka baaraandegayso dowladda waxaa ka mid ah in lagu amro dadka dhalinyarada ah iyo kuwa waaweynba in ay guriga ku jiraan, iyo in xadidaado aad u adag lagu soo rogo maalmaha weekendiga, laakiin xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha lama doonaya in si buuxda loo xayiro. dalka Jarmalkana waxaa laga helay viruska 12,242 qof oo cusub 24 saac la soo dhaafay, sidaasna waxaa sheegay macadka arrimahaas qaabilsan ee Robert Koch. tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ayaa dalka Jarmalka waxay noqonaysaa 403,991 qof. ilaa iyo haatanna waxaa cudurku u dhintay 9,950. xaaladda viruska corona ee Jarmalka ayaa ku socota meel aad u xun, waana maalinkii labaad ee dalka Jarmalka laga helo wax ka badan 11,000 xaaladood. dalka Talyaaniga ayaa isaguna aan ka yaraysan dhankaasi, waxaana 24 saac la soo dhaafay laga helay viruska 19,143 qof oo hor leh, waxaana sidaa sheegay howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee Talyaaniga. waa tiradii ugu badnayd ilaa iyo haatan laga helo dalka Talyaaniga, dalkaasoo ah meeshii ay mawjadii koowaad ee viruska corona kasoo bilaabatay, xaalad adagna ay gaarsiisay. sidoo kale Talyaaniga waxaa u dhintay viruska 136 qof. dalka Holland oo isaguna maalmahan xaaladiisu ay bariga dhexe marays ayaa 24 saac la soo dhaafay waxaa viruska laga helay in ka badan 10,000 qof oo cusub. waa tiradii ugu badneed ee laga helo viruska tan iyo intii uu xanuunka safmarkaa ka bilowday dalka Holland. waxaa 14 bisha Oktoobar la soo saaray amarro lagu xadidayo xaaladda viruska corona ee sii socota, waxaana ka mid ah in la xiray maqaaxiyihii iyo dhammaanba baararkii. dowladda dalka Denmark ayaa iyaduna maanta soo saartay sharciyo cusub oo lagu adkaynayo xayiraadihii hore ee lagu soo rogay arrinka viruska corona. sida ay sheegtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mette Frederiksen oo shir jaraa'id maanta qabatay, waxa ay sheegtay in arrimahaasi ay ka mid noqon doonaan in tirada isu imaatinka ee awal 50 ahayd haatan laga dhigay 10 qof. waxaa kaloo ay sheegtay in baararka loo diiday in ay iibiyaan khamriga wixii ka dambeeya 10 fiidnimo. sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Denmark waxa ay sheegtay in haatan khasab laga dhigayo in dadku ay qaataan afshareerka marka ay joogaan goobaha guud ee la isugu yimaado, oo ay ka mid tahay dukaamada raashinka iibiya, suuqyada waaweyn ee ganacsiga, shineemooyinka, isbitaalada, goobaha dhaqanka iyo meel kasta oo dadku ay isugu imanayaan. waxaana la sheegay in arrinkaasi ah khasab in uu noqday afshareerka in la qaato in uu dhaqan geli doono isniinta soo socota ee 26 bishan aynu ku jirno, isagoo socon doona ayay tiri ra-iisul wasaaruhu ilaa iyo 2 bisha January ee sanadka soo socda. arrimahaas ayay ku tilmaantay inay yihiin kuwo lagu xadeynaya ama ay wax kaga qabanayaan sharciyada lagu adkeynayo faafista ama looga hortagayo faafista cudurka viruska corona. waxay sheegtay Frederiksen sidoo kale in sharciyadii hore loo soo dejiyay ama xadidaadihii hore u jiray ee looga hortagayay cudurkan ay weli sidooda u sii socon doonaan. sidoo kale
dalalka Swaziya iyo Liechtenstein ayaa iyagana xaaladooda ay meel adag maraysa, waxaana isku darkooda laga helay 6634. waxaana ilaa iyo iminka labada dal marka la isku daro dadka laga helay fayraska ay kor u dhaafayaan 100,000 oo qof, waxaana haatan ay damacsan yihiin in ay iyaguna soo saaraan sharciyo adag. ra-iisul wasaaraha dalka Spain ayaa isaguna war dadka ka yaabiya sheegay kadib markii uu yiri dadka laga helay fayruska corona 1 milyan waa ka badan yihiin sida hadda qoran, oo waxa ay gaarayaan buu yiri ilaa iyo 3 milyan oo qof. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo telefishinka ka hadlaya maanta ayaa waxa uu sheegay in wararkii hore u qorna ee ah in 1 milyan laga helay arrinku uu ka badan yahay, maxaa yeelay buu yiri sida dhabta ah cadadku inta uu ka badnaan karaa waxaana uu gaarayaa 3 milyan, sababtoo ah markii xanuunka safmarkaa uu ka bilowday buu yiri wadanka Spain dadka intooda badan lama ogaanin. haatanna qodobkii ugu dambeeyey ee aanu hadda bilownay isla markaana aan si guud uga hadli doono xaaladan. dhegeystayaal, waxaan idin xusuusinaynaa xanuunkan fayruska corona ee caalamka hadda haya waa xanuun ilaahay subxaanahu watacaala uu keenay, isla markaana awoodeenna ka baxsan. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in ay ku murmaan waxba kama jiraan iyo waa la sameeyey iyo waxbaa ka jira. hadda arrinku halkaa ma yaal, hawshu hadda way soo dhaaftay. wixii waa wax socda, waa wax faafaya, waa wax aan la celin karin. sidaa darteed maxaa nala gudboon? waxaa nala gudboon in aan dadaal muujino, taxadar qaadano, asbaabtana aan la nimaano. adigoo dadaalaya ayuu kugu dhici karaa, waa sax. adigoo qof qaba ag jooga ayuusan kugu dhici karin, waa sax. intaasna diinteennu waa sheegtay. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlayay daacuunka waatuu lahaa ka carar qofka cudurka judaanka qabee la kala qaado ka carar sida aad uga cararaysid libaax oo kale. bal nin qaba cudurka judaanka oo rabay inuu la baayactamo nabiga calayhi salaam, markii nabiga loo imanayo oo lala baayactamo waagi hore waa la salaami jiray, waa loo iman jiray, nabigu waa celiyay, meeshiisu ku celiyay. axaadiis badan baana tilmaamaysa inuu yiri dhul daacuun ka dhacayna ha gelina, qofkaan ku jirin kii ku jirana yuusan kasoo bixin. waxaa kaloo iyadana jirta in asbaabta lala yimaado, oo ninkii nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam ee yiri rasuulkii allow ratigayga intaan seexdo ma iska sii daayaa oo ilaah baan tala saartaa, mise intaan xirto ayaan ilaahay tala saartaa? markaasuu yiri xiro ratigaaga, ilaahayna tala saaro. taa macnaheed waxaa weye walaalayaal in aada loo dadaalo. sida aad maqlayseen wararka hadda, dalka Finland waxaa la sheegay inuu yahay dalalka xaaladoodu aysan aadka walwalka u lahayn, sababtoo ah howlaha caafimaadka iyo wax ka qabashada iyo talooyinka ayaa weli shaqaynaya. laakiin haddii aanu ka qayb qaadan weyno arrinkaas oo aan is ilaalin weyno, xaaladdu farahay ka baxaysaa. markay faraha ka baxdana dhibkeeda anagu nagu soo noqonaya. waxaan rabaa inaan idiin sheego in haatan miiska uu saaran yahay, sida wararka maalin aad ku maqlayseen, in sharciga diimaha wadankan la farageliyo. maxaa yeelay sharciga diimaha wuxuu dhigayaa in aan goobaha diimaha sida kiniisadaha iyo masaajida aan la faragelin karin. sidaa darteed hadda waxay rabaan in ay taabtaan, sababtoo ah waxaa la ogaaday meelaha xanuunka hadda aadka ugu imanayo in ay tahay goobaha diimaha sida kiniisadaha iyo masaajida. waad ogtihiin wixii ka dhacay kiniisadii ku taala Uvaskuda. haddana xanuunka weliba annaga dhexdeena inta badan markii warbixintu ay soo gaarto dadku waxay leeyihiin masaajidkan joognay. arrimaha darteed marka waxaa fiican, masaajid lama diidana, qofku wuu tegi karaa. kow horta in afshareerkii la qaato, dadka maamulada masaajida ah lagu caawiyo in amarada ayna siinayaan aan qaadano, aan wax ka maqalno. afshareerkii in la qaato, in la kala fogaado, salaantan iyo xabadkan la isgelinaya la iska daayo, xafladahan la aadaya aroosyadan dib loo dhigto oo la iska joojiyo. isu imaatinka iyo tirada badan waa meelaha ugu daran ee hadda xanuunka lagu kala qaadayo. arrinka ahaa horey igu dhacay mar kale iguma dhacayo, iyadana waa laga daba yimid oo wax badan hadda kama jiraan. bal hadda warbixinihii ugu dambeeya waxay tilmaamayaan dadka uu sida khafiifka ugu dhacay bil kadib haddana inuu ku dhici karo. dadka uu ku dhacay gugii hadda lasoo dhaafay sida aadka ugu dhacayna waaba lahayaa hadda iska dhaaf meelaha kale. Finland baa lahayaa dad la yaqaano 2 mar uu ku dhacay, qaarkood hadda wararka waxay sheegayaan 3 mar inuu dad ku dhacay. marka waa wax is soo taraya, marba warbixin ay ka imaanayso. marka walaalayaal, qof kastoo naga mid ah taxadarka ha la yimaado, khaasatan hadda Helsinki iyo Esbo iyo Vanta. weliba Esbo iyo Helsinki waa labada meelo hadda ugu daran bulshadeena Soomaalida dhexdeedana oo sida aadka dadka u soo ritay.
sidaa darteed qof kastoo naga mid a ha dadaalo, afshareerka ha la qaato, socodka badan ha la iska daayo, isu imaatinka ha la joojiyo. waa muddo yar inta ma aragtay insha allah waxaan ay dhammaan doonaan. ha la adkaysto awaamirta dowladda iyo kasoo baxaya waaxaha caafimaadkana aan ku saacidno sidii wax looga qaban lahaa. waxyaabaha u baahan wax ka qabashada waxaa ka mid a haddii xanuunka lagaa helo meel alla meeshii aad tagtay iyo qofka aad la kulantay waa inaad sheegtid. annaga waxa weye waxaa laga dhigayaa arrinkii jariima qofka hadduu sheego. waxaa saa loo leeyahay waa maxay? waa si uusan xanuunkii usoo faafin oo ummaddii looga qabto. maxaa yeele waxaa dhici karta adiga hadda markii lagaa helay in aad meel joogtay, meeshaas dadkii joogana ay kaa qaadeen, haddaan iyaga laga gaarin oo la oran war karantiil gala, wixii way sii soconayaan. marka waa in qofku meeshuu joogo uu sheego, qofka markii lasoo waco la sheegana uusan dhib u arag. joornaal laguguma soo qorayo, cid magacaaga meel lagu dhajinaya male, cid wax loo sheegaya ma jirto, cid ku ogaanaysa male. haddii lagu ogaadana waxba kuma jabna, laakiin wadankan systemkiisaaba inaan qofna loo sheegin. sidaa darteed waxaan warkayga kusoo koobayaa dadaalka aan muujino, ilaahayna aan tala saarano. allah waxaan ka baryaynaa inuu xanuunka naga qaado, inta xanuunsan ilaahay u caafiyo, caafimaad degdega ilaahay uu sii dambi dhaafna uga dhigo, inta aan xanuunsanna ilaahay uu ka ilaaliyo. qofkuna lama rabo inuu baqo, ilaahay inaad tala saaratid. insha allah waxaani waa wax ku maraya, waana wax dhaafaya qofka. hadday tiisi u timaadana ilaahay subxaana watacaala ma aragtay waxaan uga rajaynaynaa khayr iyo wanaag. laakiin hadda xaaladda suu ku socdo waa sidaa khafiifka ah, qofkuna waxuu ka baqa male. ilaahay tala saaro, ducada badi, qur-aanka akhriso, wixii kale oo ma aragtay aada isku daaweyn karto. waxyaabaha aadka loo ammaanay fiican oo la tijaabiyana ay ka mid tahay toonta, malabka, lindhanaanta, sinjibiisha, dhagayaraha, xabad sawdada. waxyaabahaas o dhan waa waxyaabaha aadka u fiican ee wax ka tari kara. intaasaan kusoo koobayaa. waxaan dhammaantiin badi ku dhaafayaa sidaasii nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.